السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان dadweynaha Soomaaliyeed ee halkan fadhiya rag iyo dumarba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan rabaa inaan marka ugu horeyso u mahad celiyo dhalinyarada yaryarka ah ee runtii barnaamijkan isku soo agaasimay ee sida quruxda badan u sameynaya. aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan kaloo u mahad celinayaa abwaanka Soomaaliyeed macallin Saciid Saalax Axmed oo ahaa macallinkii hobolladii iftin ee wasaaradii waxbarashada oo maanta macnaha fursad aan u helnay inuu noo yimaado. aad baan ugu faraxsanahay. macallin ku soo dhaw Boston. intaa kadib waxyaalihii aan oran lahaa oo dhanba macallinka yiri ka daba hadli maayo. waxyaraan rabay inaan luuqadda waxyar ka dhaha kadibna aan gabay soo jeediyay yar. luuqadda waxaa lagu qiyaasaa 6,000 in ka badan oo luuqadood inay adduunka hadda ka jiraan. laakiin sanadka markuu yahay 2050ka 6,000 ee luuqadood ee adduunka hadda ka jirta boqolkiiba 50 way dhumayaan. waxaa soo haraysa boqolkiiba 50 keliya sida macnaha ay qabaan rag mataqaanaa cilmi baaris ku sameeyay. waxaa kale oo jira sanadka markuu yahay 2100ka sida cilmi baarista ay sheegayso boqolkiiba 90 luuqadaha maanta lagu hadlo way tagayaan. 10 ayaa soo haraysa. marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa luuqadeena inuu ilaahay ku dirin 90 ka tagayso horta. intaa kadib waxaan rabaa inaan macnaha waxyar ka yiraahdo Soomaalida berigii hore warqad la qoraayay waxaan ma jirin suugaanta ayay macnaha wax isku tusaaleyn jireen. marka waxaan rabaa inaan tusaale gabay yar soo qaato tusaale ahaan. intaan gabayga u gelin ka hor waxaan rabaa inaan sharaxaad ka bixiyo gabaygaasi muxuu ahaa. berigii daraawiishtii kulligan waa taqaaniin. daraawiishtii markii ay jabeen ee la jibiyey ayaa dadkii farxadka ahaa waxay galeen dhinaca Ethiopia. waxay u galeen qabiilad la yiraahdo qoomiyad la yiraahdo Caruusa. dadkaas waxaa ka mid ahaa nin la dhihi jiray Xuseen Dhiqle. Xuseen wuxuu ka xanaaqsanaa gabadhii hore say ku baxday wuu ogaa lama xushmaynin. haddii tanne uu bixiyo iyo haddii kalaba haddii uu diiday haddii kalaba way iska guursanayaan. ilaa ninka waa nin jabay waa nin marti ah awood ma leh. sida caadada ahaan jirtay wuu soo dhaweeyey gogashuu fadhiisiyey kadibna gabay ayuu wax ugu sheegay nimankii. wuxuu ku yidhi qayaashmaash libaax baa dhurwaa qaybi yidhi soore. wuxuu yidhi hilbaha jeex bal qabo qoondhan baan nahaye. markaasuu qamaashihii intuu qoonsadow dayaye dharbaaxuu ilqab kaga siiyey oo hoor ka soo qubaye afqashuushle goortuu dhintuu sii qataabsadaye dawucuu kolkaas soo qabsaday sida qisaaseede. wuxuu yidhi qanjaafulo xumeey tali qiyaastaada. adeergacalle qaar iyo dalool qawdhi iyo feero qamuudi iyo baruur iyo leg iyo qowlihii kuruska waxay tidhi islow qaybiye neefka wada qaado. markaasuu dugaaggii qabsaday qooba kadafleeye. wuxuu yidhi isagooba qireen male dayoy qayliyaha aare innagoo quruun dhan ah maxaa qada inoo diida. waxay tidhi qacdii horeba hadduu cali ku sii qaaday kii inuu qab weynaa waa qooq wax loo dilaye anigoo qadaar ka lamiyaa qamash ka soo waaqsan. anna qaabadii baan ahoo lay qulquladeeye labadii qof ee lagaga haray qaafadii dumar middii qurux u rooneed hadday cali la qooqayso iska qaata naagoba rag bay qaac u sheetay buu yidhi. runtii macnaha gabaygaas ayaa ay sheegada ku dhammaatay uu fahmay. ninkaas gabayga waxaa ka keenay marti buu ahaa wuu jabay qaran jabay waa jabay. marka nin marti buu ahaa dhibaataasaa ku dhacday. maanta Soomaalida macnaha waxaan leenahay luuqadii aa dhumaysa afkii aa dhumaaya dhaqankii aa dhumaaya maxaa noogu wacan. dee waan jabnay waan kala yaacnay adduunyadaan ku yaacnay. meel aan sharaf ku leenahay lama arko. Kenyaana burbursanayso Ethiopiaana burbursanayso meel kasta oo ay Soomaali joogto Yemen la burbursanayso. marka waxaas oo dhan waxay noogu dhacayaan dhibaato annaga aan isu keensanay. marka luuqadeena iyo dhaqankeena iyo culture-keena kulli waxay ku hagaagi lahaayeen Soomaali oo israacado gacanaha isqabsato. marka ilaahay waxaan ka baryaa dadkii fahmo dhibaatada ku dhacday inaan fahano ilaahay kuwii mataqaana garta Allah naga dhigo. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. You're just my love, my heart, my other half.
You're just the one. Without you, smiling is a shame. Laughing is a crime. There's no words to describe the feeling you leave behind. When I, when I see children running around freely as though everyone is a family, you make me feel something greater than hate, but sweeter than love. If we were to ever meet in person, I would stand next to your right ear and whisper secrets that I never said to anyone else. I can't predict the future, nor can I change the past, but I know that one day we would be one nation. Somalia. Somalia. We won't be in each other's faces to spit hate because of what part of Somalia we are from. We are the future of Somalia. We are one Somalia. One day, Somalia will be a land of peace and love, not of war and hatred. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saddexdaas kelimad oo isdaba socota qofka markii la yiraahdo iyadoo kale inuu ku jawaabo ayaa diinteennuna tiri markuu saddexdaas kelimad qofku ku jawaabo waxaa la yiraahdaa aakhir wuxuu u tagayaa in lagu abaalmariyo 30 ajir kelmad walba uu yiraahdo assalaamu waa 10 calaykum waa 10 waraxmatullaahina waa 10 marka kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka abaalmariyo oo arrintaasi isticmaalo allah naga dhigo waxaan jeclaan lahay oo kale maanta maadaama gabagabadii aynu ku jirno sidii diinteenna aynu tiri man lam yashkuri nnaasa lam yashkuri illaah qofkan ku mahadinin dadka ilaahay kuma mahadinin barnaamijkan aad maanta ka faa'iidaysateen oo aan filayo inuu idin soo xasuusiyey dhaqankii aynu uga soo tagnay waddankii inuu halkan inoo yimid cilmi waa la doontaayaa la yidhi laakiin cilmigii baa annaga ayuu noo yimid oo abwaanadii oo aan ahayd inaan annagu doonano iyagii baa noo yimid runtii hawshaasii dad baa qabtay waxaan ammaanta hore aan siinayaa oo aad iyo aad aan u jecelahay inaad si fiican igu dhegaysataan haweenka oo aan runtii aan seexanin ay ilaa ay ka ogaadaan inuu barnaamijkanu yahay mid socon doona weli haweenkaasi khaas ahaan gurub la yidhi magacooda waxaa la yidhaha isjecel oo runtii isjeceelkaasi ay sameeyeen waa mid dhab ah waxaan odhan lahay ilaahayow siday ummadda ugu shaqeeyaan isjeceelka ay sameeyeen ilaahu soomaaliya saasuu jeclasii waa runtii shay weyn oo loo baahanya dadku inay fahmaan haweenkaasi shay walba oo la qabanayo masaajidkani diyaar bay u yihiin weli mararka qaarkood jeebkooda ka bixiyaan runtii waxaan odhan lahaa ilaahay ha abaalmariyo ilaahay jeceelka ay hayaan kaasoo kale soomaalida allaha siiyo weli gaar ahaan ragga allaha tusiiyo ragga marka aragti isu yimaadaan kala cararaaye ilaahay waxaa odhan laheen noqda sidii kuwa isjeceel oo kale noqda adinkana taas waa midda hore weeyaan midda labaad runtii barnaamijkan waa barnaamij inagu cusub waa markii u horraysay magaalada aan ka samayno qof baan habeenna u seexanin runtiina u baahan in la yidhaahdo waad ku mahadsantahay waa wiil yar oo dhallinyar ah idriis haddii loo malaynayey inuu dhaqankii guurayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu dhiibay dhallinyaro inaga yara marka in la yidhaahdo waad ku mahadsan tahay mooye in la yidhaahdo ma aha maxaasaan u samaysay ma ah intaasuu u soo jeeday
uu samaynayey oo dhinac walbaba uu maaragtay u istaagnaa in barnaamijkan u socdo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo waalidkiisana waxaan leenahay wixii aad samayseen dadku way arkayaan waalid fiican ayaa wada fiican dhala marka waxaan odhan lahaa ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo wanaaggii aad samayseen waxaan ku soo gebagabayn lahay oo aan liloobaynin masjidkaani aynu joogno waa masjid aan u isticmaalno sidaan doonno runtii waxa weeyaan ramadaanna waa la joogaa hadda nin walba waxa weeyaan awooddaada iyo tabartaada ayaa loo baahan yahay kaarbadka aynu ku dukanna ee yaalla cad waxaa dhigtay haween soomaali ah hal gabar baa ku deeqday oo bixisay runtii waxa weeyaan waxyaalahaasi waxa weeyaan waxyaalaha u baahan in had iyo jeer isku dhiirigeliyo ramadaankiina wuu joogaaye qof walba ku dadaal sida garabkaada maaragtay aakhiro uu u noqon lahaa wanaag aad samaysay wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waadna ku mahadsantihiin asalaamu calaykum malabka uu dhigtuu jilalka dheeruna kan dhawaaqaya